dogeeyay cadaan salfoodeydini cidbaanigu kaadiray hadduu soo dumo cirkona waliisiga dogeeyay cadaan salfoodeydini kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtiin channelka waa channelkiina haddaad ku cusubtahay subscribe-ka ha ka ilmaamin haddaa horena la joogteen laagta aan sheerta iska saar maanta waxaa idiin hayaa fanaanka weynka ee qadarkeeyo ayaa soo bandhigay jaceylkiisa wuxuuna soo bandhigay gabar kaloo caan ah oo ka ah qaybta la yiraahdo TikTok ay caan ka tahay waxa la yiraahdaa Gabre Maayo iyo qadarkeeyo ayaa in badan lagu shakisanaay goordhow markay isku raaceen beledweyne ayaa lagu shakisanaay jaceylkooda inkastoo la ahaynin ana soo shaacin goordhow ayay soo sheegtay gabarta yiraahdo Gabre Maayo ayaa tiri jaceylkayga qadarkeeyo in badan dadku ugu shakisanaayeen maxaa ka dhaxeeyo ayay wixii ku soo qortay barteeda snaapka ah qoraal ay ku sheegayso inay qadarkeeyo fanaankaas xiriir kala dhaxeeyo goordhowna ay isguursanayaan hase ahaatee waxaa idin hayaa xogab ku saabsan iyo muuqaalo ay jaceylkooda ku muujinayaan iyagoo sawiro iyo hordhac sii samaysanayeen ayna sheegeen inay isjecel yihiin ayna isguursan doonaan waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hela hambalyada waan sii horumarsanaynaa marka qadar Axmed qadarkeeyo ayaa fanaan la jecel yahay xidiga Muqdisho ee gabadhan aan ka dhicin bariyahan dambe ama soo caan baxday sanadahan dambe oo Gabre Maayo ku magac dheer oo TikTok qabsatay xidigtaas ayaa goordhow iyo xidigaas ayaa sheegeen in is jecel yihiin goordhowna isguursan rabaan ayay soo bandhigeen beetri Gabre Maayo ayaa qoraalkeeda ku soo bandhigaysay inay isjecel yihiin inkastoo fanaanka qadarkeeyo aan weli wax aqbaal ama jaceylkiisa asaga soo bandhigan laakiin hase ahaatee Gabre Maayo ayaa barteeda snaapka qoraalo ku soo sheegaysay hase ahaatee iyo muuqaalo bariyahan dambe ay ku sheegayso qadarkeeyo inuu xiriir ku dhaxeeyo goordhowna isguursan rabaan hadda waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qaba kala hela oo aroos kale naga soo dejiya